halka aad arkaysaan keynta ah waa meesha la doonayay in wadada Mansoor ka timaada lagaga daro wadada 200 waa kayn iyo buuro buurta waa la soo jafayaa gudoomiyaha degmada Koodbuur Maxamed Salaan Maxamed Subeer ayaa wuxuu amar ku bixiyay in buurta la jafo oo la burburiyo isla markaana wadada laga soo saaro walo inta ka horeysa xagga shana ay marka hore buur kala jaxan oo kale laga sameeyay qaybtana waa qayb kale oo harsan waxa la doonayaa in halka la soo baneeyo dhagaxaanta iyo buurta aad arkaysaan wada laga soo saaro insha Allah taala imika wanaga buurta si fuulayna ama si fananayna buurtaasi waxay noqon doontaa meel wada hadii alla idmo waayo imikada waxa ku jirta cagaf ama bulldozer weyn oo buurta burburinaysa marka insha Allah iyadoo laamiyana ilaahay hay nagu simo imikana waa idinka arkaya waa buur baynu soo koreynaa buurtaas la doonayaa in laga dhigo hadhow laami waana wadada toos ugu beegan Mansoor ag martay wadada Jigjigeer iyo Mansoor wadada Mansoor dhinaca bari ka xigta ama ag marta waxa weeye waa idinka arkaya waa buurta ilaahay balse waxa la doonayaa in banaan iyo wado laga sameeyo idinka arkaya waxa dhagax yaala balse waxa la doonayaa in ay laami noqoto wadada oo halka laga daro wadada 200 jidka 200 ayay ku beegan tahay bartanka kaga dhacaysa waana wadadii Jigjigeer dhinaceeda waqooyi waa buurta aad arkaysaan wada la jafayo ilaahay noo sameeyay laamiya maanta waa 8 bishii Maarch 2022 hawl baa ka socotay imka idinka arkay cagaf taala waxa la doonayaa in la baneeyo halka marka oo halka laga daro wadadii halka jidkii 200 waa xagasha gaas kaga beegan tahay buurtaas ayaa la doonayaa inay banaan laamiya noqoto insha Allah ilaahay ay nagu simo iyadoo banaan oo laamiya oo baabuurta marayaan insha Allah taala sida arkaysaan halkaasi waxay ahaan jirtay buur weyn oo buurta sheedaha waa la ragba ilaahay u diray oo waa la kala jeexay wata maantana waxay noqotay wado walo aan laamigii la saarin marka taa kale imka aynu soo saarnayna sidaas oo kale la rajeynayay inay noqoto wado